dadku geeridooda ka warramay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah inankiisii xuseen ahaa yacni inanku awowga u ahaa ee inantiisu dhashay faatima dhashay alxuseen ibnu alcaliy ayaa soo galay wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo haweenkiisii mid ka mida la jooga laqad dakhala calaya albayta malakun lam yadkhul calaya qablaha maanta waxaa iigu soo galay guriga malag aan weligii hore igu soo gelin malagii ii yimi buu nabigu leeyahy wuxuu ii sheegay ina bnaka haada xusaynun maqtuul inankaaga kan ah ee xuseen ah waa la dilayaa buu igu yidhi haddaad rabtana weliba waxaan ku tusi doonaa meesha lagu dilaya ciiddeeda dabeetana ciid cas bay tusay buu nabigu yidhi calayhi salaatu meeshuu nabigu jooga ma aha ciid cas male malag baa ii yimo wuxuu ii sheegay inankanaan awowga u ahayn la dili doono wuxuu kaloo ii sheegay meesha lagu dilayaa inay tahay meel ciid cas leh xadiidku imaamu axmed iyo xaakim baa wariyey sheekh albaanina waa saxiix buu leeyahy hijradii nebiga 60 sano kadib ayaa la dilay xuseen waxaana lagu dilay maxay karbala meeshan ay shiicadu imika isku tuntunto halkaasaa lagu dilay meel ciid cas leh oo karbala la yidhaahdo ayaa lagu dilay waxyaabuu nebigu sheegay waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam waxaa jirtay qof dumar oo muwariqa la odhan jiray bintu cabdallah binu xaarith oo nebigu islaantan jimco kasta wuu soo booqan jiray markay salaada jimco tukadaan ayuu wuxuu ku odhan jiray saxaabadiisa kuwa la socda markaasi intaliqu nazuru shahiida inakeena aan soo booqanna gabadhii shahiidadda ahayd waa qof dumar ah waxaanu nabi maxamed leeyahy waa shahiidad ee aan soo booqanna inakeena islaantani nebiga waxay ku odhan jirtay calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisiiyo ii ogolo waan dagaalkayda raace iska joog marka la yidhahdo waxay tidhahdaa xataa haddaanan dagaalka gelin kiina dhaawacma kiina xanuunsada kiina kuwaasaan caawin doona oo dagaalka wuxuu mantari doonaaye ii ogolo waan ku raace anigana waxaa laga yaabaa bay tidhaahdaa goobaha aanu idinku caawinayo in ilaahay shahaado igu siiyo oo aan shahiid ku noqdo nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qarri fa in allaha caza wajalla yuhdi laka shahaada fadhi gurigaaga ilaahay adiga gurigaagu shahaado kuugu keenayahay iyadu waxay leedahay aan goob dagaal tago nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qarri nagow gurigaaga ku nagow halkaagaad shahiidnimada ku helaysa qofkan dumari xilligii nebiga way noolayd xilligii abuubakarna waa noolayd xilligii cumar wakhti ka mid ah ayay wiil ghulaam iyo jaariyad ay lahayd laba wiil iyo gabadh addoomo ay haysatay waxay ku tidhi can dubur baa xortiin duburku waxa weeyaan haddaan dhinto xor baa tihin intaan aan da' baan ahee iisii adeega laakiin marka naftu iga baxdo xor baa tihiin dabeetana waxay idhahdeen islaantani hore u dhiman mayse maxaynu yaallaa wiil iyo gabadhi waa u tashadeenoo qadiifad yaroo guriga taallay bay ku baktiyeen hunaa kaga qabteen dabeetana intan waa dileen halkeedaasaa ilaahay shahaadadeedii uu ku siiyey waa haweenay uu nebi maxamed leeyahy adiga waa lagu dili doonaa waana haweenku waa dadka ugu foge maxay dil ku dhinta